السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذن سلامي دمانتين salaanta horta aad ay u qiimo badan tahay. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inaan bas salaan ku bilaabin oo aan seetihiin. Waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan aan dhaho. Waxaan ogaaday salaanta ugu qiimaha badan salaan in ay tahay salaantii aan ku bilaabay. Waana salaanta ahlu jannada. Markii qof la salaamana waajib ayay ku noqonaysaa. oo waxaa xadiiskii fa idaa xayiikum faxayuu biaxsani minha. Marka salaanta aad ay u qiimo badan tahay. Mar dambana oo malaynay inaan ka tagi doono. Maantayta waxaan rabay inaan ka hadlo maalgashiga nafta. Marar badan ayaa waxaa laga yaabaa bini aadam ayaa nahay in aan ku mashquulno waxyaabo aan faa'iido noogu jirin. Marka maantayta waxaan ka hadlaynaa waxyaabo aad u faa'iido badan, waxyaabo naftanada horumar gaarsiinaya. Maalgashiga waqtiga, maalgashiga ugu fiican ee waqtigana waa maalgashiga qofku uu maskaxdiisa maalgeliyo, waa maalgashiga nafta la maalgeliyo oo noloshu mashaakil kama marna. Markastana ma noqonayso qurux iyo dhaldhalaal joogto ah. Hadaa rabtidna heli maysid. Mida koobaad oo uu qofku naftiisa ku horumarin karo. Mida koobaad oo uu naftiisa qofku ku horumarin karo waa inuu wax akhriyaa qofku. Waqtiga hadda lagu jiro waa waqtigii informationka, waa waqtigii cilmigii oo dhanba uu farahaaga ku jiray waaye. Waa waqtigii ugu fiicnaa waqti ee bini aadamka soo mara marka ay noqoto aqoon kororsiga. Waxaadna ogaataa markii aad buug akhrisid ama qof wax baranaya aad tahay oo buugaagtii aad ku dhex jirid cilmigii, in buugaas waxa ku qoran ay laga yaabi lahaaba in ay 20 sano 30 sano ay kugu qaadato sidii aad casharkaas ku baran lahayd ama cilmigaas aad ku baran lahayd ama aqoontaas aad ku heli lahayd. Balse bil aad akhrisay buug ama ka yar maalmo yar ka yar ama 2 usbuuc aad akhrisay buug aad cilmigii ku heshid sanadaha badan ay kugu qaadan lahayd. Cilmigaasna uu noloshaada wax ka bedelo, cilmigaasna uu noqdo mid wax ku ool ah oo horumar ku horseedo, mid aad qani ku noqotid oo aad wax soo saar ku yeelatid, mid aad Ilaahay ugu dhawaatid, mid dhinac kasta oo noloshaada ka mid ahba guul ku horseeday inuu noqdo laga yaabaa cilmigaas. Markii ay noqoto in wax la akhriyo wax yar oo ciyaar ah oo maaragtay faa'iido weyn aan lahayn yaa laga soo qaadin. Waa casharka koobaad oo amaanta in la wadaagayo waa casharka wax akhriska ah. Casharka labaad oo aan isleeyahay nafta lagu horumarin karaa waa course inuu qofki qaato. Course-kana wuxuu soo hoosgelayaa reading-kii oo kale waa aqoon kororsi ayadana. Course-ku waa wax yar oo fudud. Inta badan course-yaasha la qaato 6 bilood 5 bilood 3 bilood 2 bilood ayay course-ka noqdaan. Waa wax yar oo fudud. Waxaana laga yaabaa course yar oo aad qaadatay 2 bil camal u soconaya ama 3 bil inaad shaqo aad si degdeg ugu heshid oo meeshaasna wax soo saar aad ka samaysid. Marka laga yaabaa in dadku ay wax bartaan oo sanado badan ay jaamacad ku soo jiraan, degree ay qaataan, master degree qaarkood ay haystaan, shahaadadii markii ay qaataan qofkii uu shaqo fiican uu sahelino u qalanta shaqo uu ku tamaninayay inuu helo uu sahelina qofka laga yaabaa. Balse course-yadu aad ay cajiib yihiin. Course-ku shaqo degdeg ah lagu helaa inta badan waxyaabo badan wadooyin aad u far badan ayuu course-ku ku furayaa markii aad qaadatid. Sida course-yaasha dumarka ay qaadan karaan inay make-up-ta bartaan, inay bartaan timaha sida loo hagaajiyo, inay bartaan gabdhaha saloonada oo kale. Meeqa gabdhood oo iskuulba aan weligood dhiganaa maantay make-up intay barteen waxyaabo la mid ah noloshooda ku horumariyay oo saloono furtay oo dhaqaale badan uu ka soo galayaa. Marka course-ku wax yar oo ciyaar ma ahan. Meeqa qof ayagoo xitaa aan iskuul soo marin course yar oo computer ay baranayaan basic inta bartay shaqooyin ku helay maanta oo qaarkoodna xitaa ay ku noqdeen multi-millionaires sidii wiilkii Soomaaliga ahaa, wiilkii maaragtay uu ka hadlayay ninka Drew la dhaho oo Soomaaliga ahaa oo computer-ka yarka barbartay kadibna hadeertaana wuxuu leeyahay South Sudan iyo meelahaasna he's almost half a billion uu marayaa network-kiisa.
computer unbuu bartay. Marka koorsku waa wax aada u cajiib ah. Koorska si gooniya aan fiiro gaara u yeelano koorsyada la barto, sababtoo ah faa'iido aada u weyn ayay keenaan. Marka laba hadeertaan la wadaagay waa tii readingka iyo tii koorska. tan saddexaad oo idin la wadaagayo waxaa waa mid aada u muhiim ah, waa caafimaadka maskaxda. Qofku inuu caafimaadka maskaxdiisa uu dib hoos u fiiriyo. Marka qaar waxaa laga yaabaa caafimaadka maskaxda inuusan fiicnayn oo tilaabada dhexdeed qaadba aysan miro dhal aysan lahayn, sababtoo ah meeshii dhammayd oo horumarka ku horseedaysa ayaa laga haystaa. Marka dib isku fiiri adigu, oo haddii aad isleedahay dhibaato ka haysata xaggaas, dhakhtar iyo counseling iyo wax haddii aad u baahan tahay, adigu unbaa naftaada og. Haddii aad aragtid adigoo markastaba distracted ah, aan si fiican u fikirayn, aan 2 daqiiqo xitaa focuska aan diiradda wax saari karin inuu qabto, xoogaa waa inaad dib iskugu laabatahay, aad isdhahdaa mashaakilkan xaggee buu ka socdaa. Mida kale, haddii maanta dhan social mediaha aan ku jirno, ad waxyaaba aad u wanaagsaneen aad daawanaysid, newska qarax baa inta ka dhacay, coronavirus intaanu qof milyan u dhimatay, waxaan baa dhacay, xaggaan baa maamulkaasaa goostay, maamulkaana saan dhahay, madaxweynahaasaan la yiri, oo maanta dhan difaaca ku jirtid oo qof siyaasi aad difaacaysid ama waxyaaba yacni dad iscaay ku mashquulsan tahay. Waxaad ogaataa caafimaadka maskaxdaada inuu dhaawac soo gaarayo, dhaawac weliba aan yarayn oo laga soo kabsan karin, inuu marka qaarkood soo gaarayo adiguna aadan ogeyn. Marka maskaxda caafimaadkeedu waa muhiim, xoogaha la saaro. Midda aan kusoo gunaanadayo waxaa waaye inaad noqotid qof xor ah. Qofka bini aadamka ilaahay wuu karaameeyey, wuu sharfay. Qofku markuu uu noqdana qof si xor ah u fakeraya, waxyaaba aada u waaweyn ayuu ku tallaabsan karaa, tallaabooyin wax ku oola ayuu qaadi karaa qofku. Ha noqon qof markastaba dadka ra'yigooda raba inuu ogaado, markuu rabo inuu tallaabo qaadaba. Hadeertan waxaa laga yaabaa inaad muuqaalo soo gudbin jirtid, inaad jecesho inaad muuqaalo soo gudbisid sida barta Facebook oo kale ama YouTube oo kale, oo aad ku fiican tahay dhinaca hadalka oo kaleeto, oo waxyaaba faa'iido leh dadka aad rabtid inaad usoo bandhigtid. Markaasaad maanta dhanba qof baad la tashanaysaa, ka waran haddaan science sameeyo, ka waran haddii aan maradan soo gato ma ku nuurayaa, ka waran gurigayga, ka waran kuraastan haddii aan xagga ujeediisay noqonaya. Adigu waa inaad noqotaa qof xor ah, waa inaad noqotaa qof qawi ah. Ilaahay wuxuu jecel yahay dadka qawiga ah. Almu'minu alqawiyu khayru wa ahabbu min almu'min addaciif. waa kaseysaan kulligiinba ama waa maqasheen. Marka walaalayaalo aan noqono dad qawi ah, aan noqono dad si xor ah u fakaraya go'aamada ay nolosha qaadanayaana go'aankii aad isleedahay wuu kula saxan yahay, fikradii yar oo kugu soo dhacdaba oo aad isleedahay waa wax ku ool faa'iido ku leedahay, xooga saar, tilaabadana qaad, ilaahayna tala saaro. qasab ma ahan mar kastaba inaad dadka fikradahooda aad ogaatid. Ilaahay wuxuu maskaxda noo siiyay inaan anagu ku fakarno, inaan anagu iskaraameeno, is-sharafno, sababtoo ah Ilaahay wuuna karaameeyay, wuuna na sharfay. Marka intaas ayaan kusoo gunaanadayaa. Run ahaantii barnaamijyadaan kale taan jeclaa inaan soo gudbiyo. I love inaan barnaamijyadaan kale soo gudbiyo. Waxaanan dareemaa inaan ku fiicanahay soo gudbintooda, sababtoo ah waa waxa anigu jeclahay. Qofku markuu wax uu jecel yahay dadka uu la wadaagayo oo uu dadka u soo gudbinayana wuu ku raaxaysanayaa, sida si ugu wanaagsan ayuuna u sameynayaa wixii uu sameynayay. Marka xaggaas ayaan kusoo gunaanadayaa. Maalgashiga nafta ha noqoto readingkii, ha noqoto course-kii la qaadanayay oo aad u muhiim ah, ha noqoto caafimaadka maskaxda, caafimaadka iyo maskaxda jirkaba. Jirka xitaa in cunto caafimaad la cuno, in xoogaa la socdo, hadaadan exercise xitaa aadan sameynin oo gym aad gelin. Anigu nafteeda hadaan kasoo qaado biro ma qaadi karo gym intaan tago, waa nibcahay waxaas oo kale. Intaan hal mar qaadayba oo lacagta aan bixiyay 10 biro xitaa ma wadin farahan ka qaaday. Marka soco haddii aadan xitaa gymka aadan rabin, waa inaad socotaa, waa inaad cunto caafimaad la cuntaa, waa inaad hoos u fiirisaa caafimaadka, sababtoo ah wax kasta oo aad haysatid ba caafimaadka ka muhiimsan. Lacag kaste, dhaqaale kaste, magac kastood yeelatid, caafimaadkaagu hadduusan ahayn caafimaad, haddii aadan jirkaagu uusan ahayn jir caafimaad qaba, waxaas oo dhan wax ay kuu tarayaan way iska yar tahay. Marka caafimaadku waa muhiim. Si xor ah inaan u fakarno. Gunaanadkin wuxuu ahaa si xor ah inaan u fakarno, inaan anagu iskaraameeno. Ilaahay wuuna karaameeyay.
in tilaabo markii aad isdhexdeed qaad aadan maanta dhan dadka aadan weydiin waxa ay ka aaminsan yihiin tilaabadaas, waayo dadku waxay kuu sheegayaan waxay ayagu yaqaanaan oo keliya. waxaa laga yaabaa inaad tilaabadaas qaadid, haddii ay kuu shaqayn weydana aad ka tagtid oo tilaabo kaleeto aad maaragtay qaadid oo ka duwantii hore. inta badanna waxaad ogaataa haddii qalad uu kaa dhaco bini-aadamaa leeyahay ama tilaabo khaldan aa qaadid casharna aad ka baratid, waxay u badan tahay in aadan qaladkii oo kale aada sameyn. qaladaad hore la sameysay cashar hore la ka baratid, noloshana micno ayay u yeelayaan qaladaadkan aan sameynayno iyo waxyaabahaanayto aan ku guuldareysanayno. waxaa laga yaabaa in wax xun loo arko qaladka naga dhacaya, laakiinse micno aada u weyn ayay nolosha u sameynaysaa, tayo ayay yeelanaysaa noloshaada. qof waxaadna noqonaysaa karti leh oo wax ku ool ah oo experience badan leh dhinacyo badan oo nolosha ah. xaggaas ayaan kusoo gunaanadayaa. channelkana wax yaraa nooga dhiman runtii 1000 subscribers inaan gaarno. feel free inaad subscribe saartid sababtoo ah waa free, aniga dhiirigelin ay noqonaysaa. asxaabtaadan la wadaag. khayr idinku dhaaf. assalaamu calaykum.